السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحاب تكلنا كاقون جود كسر دوادا برنامجك وياها بيدي بسم الله الرحمن الرحيم ugu horeyn waa inii mahad celinaya maartay generalka aqoon guud oo maartay Cabdixafiid injineer Cabdixafiid teamkiisa magacaygu waa Cabdullaahi Cabdiqaadir Cabdicasiis ku magac dheer maartay tukade hadaan yaani siyaro baro dadka nafsadeeda waxbarashadii marxaladii iskuulka waxaan ku soo qaatay maartay qayb magaalada Muqdisho qayb kale waxaan ku soo qaatay maartay gobolada dhexe isla maartay magaalada Muqdisho waxaan ku qaatay bachelor degree sidoo kale kadib waxaan maartay ii soo gashay inaan maartay maad wadanka Bangladesh waxaan heerkii masterka ka diyaariyay maartay jaamacadda Bangladesh University of Science BHS ee ku tagal magaalada Dhaka haddana maartay waxa socdo qorshahayga maartay ku diyaarin lahay PhD-ga insha Allah sida soontiina waxaan sameeyay book yaani qoray la dhaho Quraanka sayniska casriga buugaas oo in badan aan rajeynaa macluumaad ka heli doontaan haddii markaan imaado Muqdisho iyo qaybaha kale Soomaalida maartay waxaad heli doontaa buugaas mid bacdiis weyn insha Allah Bangladesh waqti badan baa joogtay dhacdooyin badan waa kala kulantay dhacdooyinkaas mid ama laba adaan la wadaagay kadib dhacdooyinka ugu xiisaha badnaa ama kugu yaabka badnaa dhacdada ugu yaabka badneed Bangladesh kala kulmay habeen maalin laba habeen laba maalin yaani aana seexan hurdo marka waxaan isku dayay inaan maartay meel lagu gado daawooyinka inaan ka doonto daawo marka ninkii farmasiga joogay waxaan ku yiri ma seexanin maalmahaas waxa u baahanaa kiniin hurdo inaan si aan u seexdo marka waxyaabaha yaab kale dhigsi ugu jawaab wuxuu yiri if you want you can drink hot water hadaa u baahatan wax caadi kartaa maartay qamar si u seexato marka dhacdada ugu yaabka badneed dhacdada Bangladesh kala kulmo nin maartay jooga farmasi oo ku talaa in maartay laabo hot drink maxaa talo iyo tusaale iyo waana asiinaysaa bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan ardayda ku nool wadanka Bangladesh caasimadiisa Dhaka horta qodobkaas yaani talo iyo tusaale aan sii lahaa ardayda Soomaaliyeed gaar ahaan ardayda joogta maartay Bangladesh really waa muhiim in maartay su'aashaas ay weydiisay engineer waxaan sii la horta dadku focuska inay saaraan ujeedooyinkii u yimaadeen wadankan iyo hadii joogan wadamo kale iyo hadii joogan dalka oo ah dadku inay wax bartaan kana baxaan maartay aragtida cariiriga ah oo maartay aqoon darada ku saleysan gaar ahaan marka waxaan rabay ardayda Bangladesh inaan siiyo talo ardayda Bangladesh dabcan iyo adduunyada kale ardayda joogta waxay jaanis u heleen dadka dibadda u soo baxay inay dibadda wax ku bartaan oo dal naga maartay dalal naga thaqaafo badan naga cilmi baaris badan u yimaadaan ay wax ka bartaan marka waxaan talo ahaan sii lahaa inay ka faa'iideystaan dalkaas ay yimaadeen sometimes waxaan arkaa aan maqlaa dadku feel garoobay maartay inay wax bartaan waxa ogaanaysaan waalidiinta Soomaaliyeed ma lahan laba option oo ah inay adina wax ku baraan lacag kale oo gaar ah hadhow daa fashilantan ay ku dhaqmaan ma haystaan awoodoodo dhan waxay saarayaan in adiga wax barato maartay aad banaanka iskeensi ay hadhow anfacdo marka dadka aan isleeyahay waxbarashada yaro ku fashil maxay laba qodob sababi karta in qof waxbarashada maartay uga yar saagseego dibadda doo joogo mid waxa waaye qofku wuxuu dooranayaa kuliyad oosan macluumaad keen ama ku ad soo marka koobaad qofku waxa fiican iska saxo waxa uu barnaay waxa uu jecel yahay inuu barto qofka intuu barnaa qof wuxuu u sheegay midda labaadna waxa qofku inuu doorto saaxiib wanaagsan hadduu qof saaxiib wanaagsan dooro waayo waxay noqonaysaa maartay inuu feel garooba fududaanayso marka talo iyo tusaalahaas aan sii lahaa ardada daafaha adduunyada wax ka baranayso iyo kuwa wadanka jooginta qoonyaan tukada diyaar muu tahay su'aalaha dab iyo dhagax aan diyaar u ahay su'aalaha dab iyo dhagax buugaagtii aad akhrisay buugay kugu saameyn badnaa riyalto buugaag dhowr ah akhri inkastoo aan akhris badnayn haddana buugan yaani ka dalbada jiro wadanka anoo halkan jooga la ii keenay buugaas waxa la maartay riyooyinkii dahsoona buugaas waxa qoray yaani yaraan isgaranaynin loo dhaw Cabdulla Qaasim Daami oo maad celinaa maqaldaa insha Allah buugaas waxa ku qoran maartay riyooyin fara badan oo ay fiicnaa lahayd in dhab laga dhigo marka buugaas waxa buug aad ii soo jiitay dabcan asagana oo inta badan oo leeyahay buugaas xogta ku qoran oo nafsiin mid asag ka timid ay tahay buugaas aad uu ii sameeyay haddii aad noqon lahayd madaxweyne waa maxay shayga ugu horeeya wax ka bedel lahayd horta haddii aan madaxweyne noqon lahaa shayga ugu horeeya aan wax ka bedel lahaa wax kamid ahay way of thinking dadka si u fakarayaan aan wax ka bedel lahaa inta aan la dhisin institution waxa fiican in la dhiso bulshada
habkay u fakarayaan iyo aqoontooda marka dadka aniga waxaan juhdi iyo waqti gelin lahay lacal haddaan noqon lahaa madaxweyne inay dadku noqdaan maaragtay dad fikirkooda ay wanaagsan yahay aqoontoodan ay wanaagsantahay هذا كوقع صدح عري wallaahi su-aashaas naftaada ku qaax saddex eray horta waxaa waay su-aal ay u inay yara adagta u muuqato horta ani ahaan in simbalaho waxaan ahay macnay jecel inuu u hoggaansamo maaragtay shuruucda la dejiyo mideeda kaleeto waxaan yacni aan aad u jeclahay dadku inay ay maaragtay waxaan yacni markaste aan dhiirigeliyaa isku duubnida sidoo kaleeto waxaan yacni aan jeclahay erig sheeg lagu magacaabo ixtiraamka ama qofka haweyna waa maxay hobbigaaga hobbigayga aniga oo aan jeclahay inaan yacni noqdo horta koow waxay tahay qofka inaan yacni aan markaste aan ahaado qof baaxita waxbaara oo macluumaadka adduunyada ilaahay ku keediyey aan maaragtay wax ka ogaado macnaha waxaan jeclahay inaan noqdo researcher hobbigayga sidaas waay haddii noloshu tahay buuggaas maxaad magaca uga dhigi lahayd buuggaas haddii nolosha ay tahay buuggaas wax magaca uga dhigi lahayd hadday nolosha buug tahay yacni buuggaas wax magaca ahaan uga dhigi lahay fakir oo kii fiican barbaari waa maxay taladii ugu wanaagsaneed iyo taladii ugu xumeed ee aad hesho taladii ugu fiicneed aan helo iyo taladii ugu xumeed aan helo horta taladii ugu fiicneed ee dadku isiyaan laba arrimay ka koobneed kow waxay ahayd inuu qof improve ku sameeyo personality shakhsiyaddeeda inaan koriyo hag aqooneed ha aad hab fikirna ha aad talada ugu fiicneed oo helaa sidoo kale talada ugu fiicneed waxaa ka mid ahay yacni inaan markaste aan yacni u dhowaado xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadaadii inaan sameeyo talooyinka ugu fiican oo dadka aan ka hela ka mid ahayd talada ugu xumeed oo aan helo waxay ahayd 2009kii yacni xoogaay waxaa isoo yara wajahay caqabaad ku saabsan dhanka waxbarashada marka qofaan tala ahaan siiyey waagaa hadda inta aan jiro waa ka yaray marka waxaa irniyo saasaa jirto waxbarashada amuurihiida mashaakilka jiraaye see kuula muuqataa markaasuu yidhi gaari darwalka noq waxbarashadnaba iska dhaf marka taladii ugu xumeed qof isiimidaasay ahayd tusaale waxaad tahay dictator waxaa la rabaa inaad samaysid hal sharci kaasoo qof walba ku khasbay inuu raaco sharcigaas muxuu noqon lahaa haddii aan ahay dictator oo maaragtay ay noqon lahayd inaan sameeyo hal sharci oo la raaco sharciga la raaca wuxuu noqon lahay yacni dadku inay sameeyaan arrinta ah maaragtay dadka waxay yacni aan ku qasbi lahay si sharciyan caadi ah oo yacni aan ka baxsanayn shuruucda ilaahay dadka waxaan ku qasbi lahaa inay sameeyaan yacni shaqo nafsiyan ah qof walba inuu u sameeyo si uu dalka uu ku nool improvement u sameeyo tusaale waxaa ka mid ah qofka inuu wadada uu degan yahay oo asagoo ku qasbay inuu nadiifiyo ninka dukaanku hor gadanaya inuu asigu ku qasbay wadadaas maaragtay inuu nadiifiyo oo aan loo baahnayn shaqaalo lagu siiyo lacag mustaqbalka magaalada jeceshay inaad ku noolaatid haddii yacni mustaqbalka magaalada jeclaaleed inaan ku noolaado mustaqbalka laba macna waddankeena magaalan ka jeclaala inaan ku noolaado adduunyada kale magaalan jeclaala inaan ku noolaado magaalada yacni ku taalo meel Soomaalidu degaan waxaan ku noolaanayaa magaalada Boorame oo yacni aan u xulanayo inay tahay magaalo thaqaafiye xadaarad leh inta aan dad ka bartay iyo maaragtay macluumaadka aan ka helay adduunyada kale tan magaalo ahaan iyo waddan ahaan waxaan ku noolaanayaa Japan ayadana u iilanayo dad thaqaafad iyo ilbaxnimo leh inay yihiin insaan fili waxa booqatay magaalooyin badan haddii ahaan lahayd waddankii haddii ahaan lahayd dalka dibadiisa magaaladee ayaad jeclaan lahayd inaad mar labaad ku laabatid oo aad u jeceshahay horta sida caadiga maaragtay magaalooyin waan booqday waddankana ha ahaadeen meeshaana maaragtay ha ahaadeen dabcan waxaan u maleynayaa waddanka intaan magaalada joogay dabcan way ugu yaraad inaan meel aado laakiin waddanka meelo kala duwan waa tegey sida maaragtay beledweyne iyo gobollada dhexe iyo meelahaas waa tegey dabcan way habboonaa laheedaan isleeyahay inaan ku noolaado beledweyne aad iyo inaan booqdo macnaha mar kaleeto beledweyne aad iyo tusaale waxaa la yidhi qof walba waxa uu leeyahay calan gooni ah calankaaga naqshad nooca ah ayuu noqon lahaa horta haddii qof walba uu calan samaysanayo calanka horta midab ahaan aan samaysan lahaa midabka waxaa waaye maaragtay cagaarka ama akhdarka luqadda carabeed loo yaqaano ay dhexda kaga qoran tahay CK ama ay kaga qoran tahay maaragtay AT oo ah Cabdullaahi Tukadi oo dhexda kaga sawiran tahay aan samaysan lahaa su-aasha ugu dambaysa waxay ku leedahay da'daada wax rabnaa inoo sheegto su-aashaas yacni su-aal waxaa waaye muhiima da'deeda dadka waxaan horta haddaan dadku u sheego qolana waxay ku doodi doonaan da'daas uu ka weyn yahay qolana waxay ku doodi doonaan da'daas uu ka yar yahay laakiinse waxaan ogahay nin la dhaho maxamed faatix inaan ka weynayn yacni horta aadaan u bogaadinayaa jaaniskan iyo fursaddan ay siiyaan maaragtay aqoon guud oo hormuud u yahay injineer cabdixafiid dabcan waxaa umaleynaa qof walbaa jaanis la iskama siiyo ixtiraam iyo xushmad uu yahay darteed
ay wuxuu ugu siiyay maartay in jaaniskan aan ugu soo madhigay bulshada aragtida ugu jirta iyo waxa aan jeclaalahay inaan sameeyo iyo nooca aan ahaa marka waa inii mahad celinaya jaaniskan fursadda sidan oo xasan qayb ka ah inaan maartay fursadan iyo engineer Yaasin sidoo kale asagana oo mahad celinaya dhanka kaamirada aad u nashqaday waa mahadsantiin